بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برقات تي في وحانا قال سقطان وبرقات تي في برنامج كان عاو حيقال قيب قادنا يا نظيف علي نظيف قرن حيدر شينة يا حليمة ديرية. برنامج كان وحيدين لسقط سينا يا وانيقو أحمد علي هدي. برنامج كان وحان عمان توقع اللي دونا أرمها قبل كبنادر إيو أرمها كالي أو بدن إيو سيدا مقام كمقالة مقدشو oo lagu tilmaamay in hadda la siiyey senataro u meteli doona aqalka sare. soo dhawaada dhammaantiin walaalayaal barnaamijka la wadaaga dadkiina ku jirta inaad la sheer garaysaan sidii dadku u gaaro. magaalada muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan ilaa waqtigii uu dhacay maxamed siyaad barre. waxay ahayd 1991 markii ay la wareegeen jabhaddii USC magaalada muqdisho oo ay ka saareen ciidankii ama maamulkii militariga ee maxamed siyaad barre. halkii laga sugayay in maalkaasi ay ka dhacdo dowladnimo iyo in magaaladaas horumar uu ka yimaado waxa ka dhacay dagaallo u dhaxeeya beelihii USC-da ee halkaas la wareegay. waxay u kala qaybsantay magaalada qaybo waxaana magaalada qaybaheeda kala duwan kala fariistay loo sameeyay qad cagaaran. halkaasna waxaa jiray cali mahdi caydiid muuse suude qanyare iyo qaybo kaloo badan. muddo markay socotayna waxaa isu beddeshay inay si kala jajabto oo ay caydiid caato muuse suude finish iyo gruub kale iyo sheekh cali dheere iyo wax kale. halkaas waxaa ka dhacay dagaallo ba'an dad badanna ay ku dhinteen waxaana ku burburtay magaaladii muqdisho waxayna isu beddeshay goob dagaal iyo xero lama degaana. waxaas u suurtageli weyday beeshii USC-da ee magaaladaas la wareegtay inay wax tanasula isu sameeyaan ama ay magaalada muqdisho horumar ay gaarsiiyaan ama ay ummadda Soomaaliyeed dowladnimo u keenaan. balse waxa ay isu beddeshay isbaarooyin dil dhac iyo isu tanasul la'aan. muddo dheer ka bacdi magaalada muqdisho waxaa yimid maamulkii uu hogaaminayay madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. waxaa loo soo dhaweeyey dadka shacabka u soo dhaweeyeen si weyn. hase yeeshee waxaa diiday warlooradii halkaa joogay. waxaa loo diiday inuu saldhig ka dhigto magaalada muqdisho villa Soomaaliya. waxaanuu samaystay madaxtooye cusub oo loo yaqaano madaxtooyada cabdiqaasim. waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah hadallee ka soo baxay in ay yidhaahdeen hadday dowlad adag noqotona waan raacaynaa, hadday dowlad jilacsan noqotona waan duminaynaa iyo wax lamida. haddaba dowladdii cabdiqaasim waa ay shaqay weysay waxayna ka shaqay weysay USC ama warlooradii halkaasi ka talinayay. si kastaba ha noqotee 20 sano ka bacdi waxaa waqtigeeda dhammaaday. muddo dheer ka bacdi suugageyn 15 sano ama muddo u dhow waxaa dhammaaday dowladda cabdiqaasim waqtigeedii waxaana lasoo dhisay dowladdii imbagaati cabdullaahi yuusuf. warlooradii oo dhan waxaa ku kacay waqtigaas ka bacdi maxaakiimtii waxaana la dumiyey warlooradii oo magaalada muqdisho laga saaray. magaaladaas ay afduub ugu jirtay muddo ka badan 15 sannadood wax isu tanasulana aanu ka imaanin. haddaba waxaa dhacday in dowladdii cabdullaahi yuusuf ay adeegsato ciidamada Itoobiyaanka kuna soo gasho magaalada muqdisho si xoog ah. dhibaato badanna ay ka dhalatay iyo dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo burbur aad u baahsan. waxaa soo galay magaalada muqdisho 40,000 oo ciidamada Itoobiyaan ah oo taangiya wata. halkaasoo maalinkiiba ay ku dilayeen in ka badan asbuuciiba 1,500 oo shacaba. waxaanay gadaal u galayeen taangiyadu siday dhufays uga dhigtaan guryada shacab u leeyihiin ayagoo siliska ku duubaya. maydka ayaa meel walba daadsanaa waxaana lagu gurayay looriyaal si dadka maydkooda loo asturo. si kastaba ha ahaatee jabhadii la dagaalamayay cabdullaahi yuusuf iyo mataqaanaa iyo maxaakiimtii ama ha ahaato gruubkii mucaaradka ah isugu tegay casmara ay hogaaminayeen waxaa lagu guulaystay in ciidamadii Itoobiyaanka la isugu soo ururiyo 3 qaybood from Kismaayo ilaa Bandiiradle in dib la isugu soo celiyo stadium Muqdisho dekada iyo aeroboortka iyo villa Soomaaliya. dagaalka badan ka bacdi waxay ogolaadeen ciidamada Itoobiya inay dalka isaga baxaan waxaana si xooga oo aan baryo aan lahayn xilkii dib ugu soo laabtay laga tuuray Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo madaxtinimadii dalka la wareegay. halkaasi waxaa magaalada Muqdisho ku hareereysnaa ama villa Soomaaliya
shabaab ama jabhado ama waxay rabtaba ha ahaatee dagaal badan oo la galay sheekh shariif sheekh axmed wuxuu ku guulaystay in magaalada muqdisho bannaanka looga saaro al-shabaab iyo gruubkii kasoo horjeeday haddaba sheekh axmed sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore waxa uu gaarsiiyey dalka doorasho waxaana uu qabtay doorasho iyadoo xabado ka dhacayso bannaanka magaalada muqdisho waxaana sidaas kula wareegay xilka xasan sheekh maxamuud isbedello badan oo soo dhacay magaalada muqdisho waxa ay intaasi sugaysay inay mar uun ka soo kabsato burburkii dagaalkii iyo rabshadihii soo maray hase ahaatee midooba midda ka dambaysa ayay uga sii daraysay oo midooba midda ka dambaysa ayay usii dhiibaysay meel meeshii hore kasii daran muqdisho waxa ay sugaysay inay xaquuq hesho 30 sano oo kaamil ah waxaa la dhisay soomaaliya ay qaadatay dowlad federaal ah waxaana gobolladu ay yeesheen maamullo iyagu ismaamula xildhibaano iyo senataro iyo qaar kaloo badan waxay magaalada muqdisho ahayd caasimadii dalka soomaaliya halkaas ayaana dowladda saldhig u ah hase yeeshee magaalada muqdisho waxay xaq u ahayd mar walba qarax qax iyo dhibaato iyo burbur mar walba waxay dalbanayeen shacabka muqdisho inay helaan xaquuq hase yeeshee marnaba uma ay suurtagelin gobollada soomaaliya waxay ka koobnaayeen 18 gobol hase ahaatee markii wax qaybsaday 17 gobol waxaana bannaanka meel cidlaa lagaga tegey gobolka banaadir oo laga saaray 18 gobol 10 sano oo xarigdiid ah ama isu dhiib ah waxaa wiigaan la soo saaray warbixin lagu tilmaamay inay gobolka banaadir helayso xaquuq waxaa la sheegay in la keenay loo ogolaaday 7 senator hase yeeshee aan golaha shacabka aanay waxba ku lahayn waxaa taas ka tii darnaa in la yiraahdo 7 senator waxay ka imaanayaan maamul goboleedyada ama waxay ku imaanayaan 4.5 iyaga ayaana matali doona gobolka banaadir arrintaas dastuuriyan iyo sharciyan ah mid ka soo horjeeda shuruucda ama federaalka ama nidaamka dalka u degsan aan wax aan la jaan qaadi karaynin waxa gobolka banaadir yahay gobolka kaliya ee bixiya canshuurta oo $100 milyan oo dollar laga soo ururiyo sanad walba halka kaliya oo dowladda uu ka soo galo wax dakhliga haba yaraatee 8 senator ee 7 senator oo hadda la keenay oo ah shaqaalaha dowladdu ee la mid ah shaqaale ay dowladdu ay keentay oo shaqo siiday oo kale gobolka banaadir waxay ku soo kordhinayaan 840 kun oo dollar sanadkii oo ay mushaar u qaadan doonaan ayagoo aan waxba ku soo kordhi doonin gobolka banaadir haddaba yaa mas'uul ka ah in gobolka banaadir uu ahaado xaquuq la'aan muddo ka badan 30 sannadood burbur qarax dil iyo qax iyo xaquuq la'aan waxaa maanta barnaamijka igala qayb qaadanaya sidaad u jeedaan xaliimo diriye nadiifo qaran iyo xaydar shiini haddaba yaa mas'uul ka ah inay muqdisho sidaan u dambayso nadiifo qaran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد علي هودي وكسلامي يولبت تيفيجا برجارته ولكن شينا ولا شيء حريمة ديرية حريمة السعدية يولبا لما أمد الصوماليات إن الدعوة دونته دل يجبت ابنه دقيس دونته لما أنت والسلامي هرتا قلبك واحد كله مكة هريسة أنت أنا فاهم تبلارن أنا قلنا qaladka waxaa iskale annaga oo ah shacabka gobolka banaadir annaga ayaa dowlad jacaylka ay naga badatay markii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed dadka mar walba dhabar adeega suubiya dadka mar walba wax walba u dhabar adeega waa dadka u dhashay gobolka banaadir especially beesha hawiye oo gobolka banaadir u dhalatay iyo waliba banaadiriga walaalaheena oo nala daga dadka waa ogtihiin waagi gumeystii Talyaaniga iyo ka horba gobolka banaadir dad baa deganaa qabiil hawiye la yiraahdo ayaa deganaa qabiilku xumaan ma aha marka la qabiyaaladeeyo ayuu xumaadaa qabiilka hawiye ayuu ahaa dadkii meeshaas deganaa ilaa gumeystii Talyaaniga iyo ka hor marka qof walba oo Soomaaliyeed meesha loogu yimaado waxa habboon in la isku ixtiraamo ixtiraamku wuxuu noqday in waagaynu hore marka xorriyadda la qaatay oo dalku wuxuu ahaa 8 gobol 8 gobol gobolka banaadir waxay lamaano la ahayd shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaana la dhihi jiray ekis banaadir markii gobolada Soomaaliya la kala jarjaray oo 18 gobol laga dhigay ayaa banaadir ay kaliya noqotay
walaalaheedii kale ayaa laga gooyey ma xuma 18 gobol Soomaaliya waa iyada ay burburtay Soomaaliya markay burburtay waan ognahay Soomaaliland waxay yiraahdeen gooni baan u istaagnaa annaga waxa soo haray waa koonfurta Soomaaliya waxaan ku heshiinay federalism oo ahaa maadaama burbur uu dhacay dhibaato ay dhacday dadka ay kala aamin baxeen waxa la yiri teeba xaq ma jira xal ah xalku wuxuu noqday in la yiraahdo bal gobol walbaba ha isu soo dhiso oo federalism aan qaadano iyo dawlad dhexe oo u dhaxaysa goboladii waxa ayaan dara ah in mar walbaba shacabku u dhashay gobolka Banaadir uu dulmana yahay haddana uu dul qaato ummadda Soomaaliyeed burburka markuu dhacay waa ay haddana ay gobol u dhigaan ummadda Soomaaliyeed ganacsatadii siyaasiyiintii culumadiinkii dhalinyaradii haweenkii ka soo jeeda gobolka Banaadir gobosha waxay u dhigaan ummadda Soomaaliyeed oo maanta laga rabay inay u helayaan shacabka gobolka Banaadir way ka jiifteen ummadda Soomaaliyeed aniga maanta gobol walba oo Soomaaliyeed waa garab taagnahay ama daarood ha noqdo waa garab taagnahay ama dir ha noqdo ama digli mil ka noqdo ama adres ha noqdo qabiil walba oo Soomaaliyeed waa garab taagnahay maxaa lagu diiday beesha hawiye ee dulman in loo garab istaago ilaa anagu waxaan raadinayno waa xaq naga maqan wuxuu yahay gobolka Banaadir wuxuu la mid yahay 18 gobol ay ku dhex taalo caasimadii laakiin markii lagu yiraahdo gobolkeedina anaa iska leh oo wixii maamulana kana wixii ka soo baxa gobolada Soomaaliya ayaa loo gudbinayaa gobolka Banaadir uu noqday agoon rajo uu noqday uusan haysanin wax asagii dadkiisa lagu taakuleeyo oo aan dhibanahay anagoo qurbihi joogna ayaan maalin walba la tiirayo hayna dhibka haysta dadkeenni marka waxaa jira in hadda ilaahay khayr ha siiyo ugaaska mudulood inuu hadaliyay ugaaska muduloodna waxyaabaha hadda socda oo todobada kor la iskaga keenay ah uu ka biyo diiday annaguna haddaan nahay shacabkii gobolka Banaadir annagoo isku duuban waxaan diidanahay oo ka biyo diidnay in 7 sano kar sanduulla ah naloo keeno ma aan ogolin annaga gobolka Banaadir annaga wax soo xulanayna annaga ayayna ka tashanayna dawladda federaalka oo ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre gudoomiyaha baarlamaanka mudane Mursal dhammaantood xildhibaanada aqalka sare aqalka hoose waxaan ka codsanaynaa in ay tixgeliyaan arrimaha hor yaalla beesha hawiye ee dhibaatada lagu hayo haddana kor looga keenayo waxaysan raali ka ahayn odayaal dhaqameed noo jooga caaqila waxaa noo jooga ugaasyo waxaa noo jooga dhalinyaro haween baa noo jooga siyaasiyiin baa noo jooga annaga ha nagala tashto oo hana la yiraahdo maxaad u baahan tihiin haddaad tihiin dadka u dhashay gobolka Banaadir maxaan idinku caawinaa annagoo isku duuban macla walaalaheena Banaadiriga laakiin in annaga wax korna looga keeno waxaan qaadan karnaa ma aha annagoo dawladdeena u gudbinayna fariintan taageersan ugaaska mudulood asagoo matalaya beesha hawiye arrintuu ka dhawaajiyana ugaaska waa ku taageersannahay waxaan u taagannahay xaq gobolka Banaadir inaan aayahooda annaga ka tashanno haddaan nahay beesha hawiye waan soo celiyay waayahay waxaan rabaa xaliima diiriye inaan siiyo hadda waxa Soomaaliya ku heshiiday federaal gobol walba wuxuu xaq u leeyahay ayaa ka talintiisa sababta muqdisho ay u weydiisanayaan hana la siiyo maadaama waxa lagu heshiiyay federaal yihiin xaquuqna uu leeyahay xataa gobolku inuu noqdo maamul goboleed laakiin uu dawladda hoos tago xataa haddii la yiraahdo hal gobol waay ma noqon karo sababta reer muqdisho mar walba ay u leeyihiin waxaan ka rabnaa dawladda xaquuqdeena waa maxay xalima soo dhawo حيدر قاضي وحن فيلا يا حليمو نما مقشو مركا حيدر قاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمال ودي وراسي مقالا حليم الديري وحتى صور لقنيسو لما أنكو لقادنا وتر عمال ودي لبعضة أقو بدن قبل كبناتر وحكين سدي وعناقا عناقا سيبا حراب إيه مجلود سببت أقو بدن قبل كبناتر لا ربي inay maamul sameystaan sababtaas aan ku soo Haydar hiraab iyo mudulood kaliya ma degana gobolka Banaadir marka baasha wasa u soo celin waxa ma taqaanaa waxa ciribta ku dhufata daynila already marka baasha general ka dhig soo dhow dhibaatadu waa saxantahay majority iyo minority waa saxantahay boqolkiiba 99 dhibaatada annaga keenay haddana annaga ay tahay inaan maamulkeena samaysano
dowladdu warkeedu waa iska cad yahay dowladdu waxay jiri 7 xubnood ayuu leeyahay gobolkan 4.5 aana loo qeybiyey marka dowladdu waxa aan ku sugno haba yaraatee ma jirto maamulada gobolka oo dhan dowladda federaalka way samaysteen galmudug maamulkeeda iyadaa samaysatay hirshabeelle iyadaa samaysatay koonfur galbeed iyadaa samaysatay puntland iyadaa samaysatay jubbaland iyadaa samaysatay maamulka gobolka banaadir waxaa looga baahan yahay dadka masiirkooda iska leh gobolka banaadir inay maamulkooda samaystaan waayahay waxaan filayaa qadkaa ka xun xaliimo mana maqashaa hadda waa idin maqlaa telefoonkayga ayaa maxay ahaatay cillad gashay marka raalli ahaada okay ku soco marka hadda ku soco su-aashu waxay ahayd maadaama aya ka talin federaalka sababta loo sameeyey ay tahay cid walbaaba inay iyadu ismaamusho maamul walba inuu isagu ishago xaquuqaa jira dastuuriya oo gobol walba u leeyahay dastuurkaa u ogol banaadir inay iyagu maamul samaystaan sababta mar walba ay u leeyihiin dowladdu waxana siido waa dulmanahay maxay tahay soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد رالي هذا يا أنا مدلك هدو تليفون كيجا أو علبة تليفون كيجا قشي marka ma garanayo waxa weeye horta waxaan la qabaa walaalkay Xaydar Shiino iyo maxay ahayd walaashay Nadiifo horta qadka أنا ولا شيء قد صحنا ملاينا هذا qadka marka haddaan u guda galo anigu horta waxaan ku hadlayaa magaca beesha karanle murusade walaalkay Xaydar aan u sheego anigu gabar murusadahan ahay waxaan raadinayana waa xaqi gobolka banaadir ma fahamtay marka maadaama aan murusada ahay dadka dulman ee gobolka banaadir ku xaqirnaan kamid ahay ma fahamtay marka taa haddaan ka gudbo waxaan hadda anaga aan u baahannahay waxay tahay gobolka banaadir waa 17 degmo 17 degmo dadka gudoomiyaalka ka ah ama gudoomiyaalku waa hawiye ama dadka u badan ee gudoomiyaalka ka ah waxa naga koreeya ama gobolkaas mar walba gudoomiyaal ka noqda ama maayar ka noqda gobernatoor ka noqda ama ku xigeen ka noqda waa banaadir iyo hawiye waa marka xaqiiqada laga hadlayo qabiilka la isticmaalayo ma aha anigu markaan qabiyaal sameeynaayo laakiin aniga markaan xaqayga ka hadlayo haddaan ahay gabar hawiye ah qofna ma ku dulminayo marka waxaan u baahannahay inaan isla ogaano gobolka banaadir dadka mar walba dulqaadka oo ka batay waa annagii waa beesha hawiye iyadaa laga rabaa aayaheeda inay ka tashato maamul u samaystaan maamulkaasna dowladduna ay nagu ogolaato dowladdu waa gobolka banaadir iyo caasimadii ku dhex taalla haddii dowladda ay leedahay ma socayso oo gobolka banaadir iyo ma aan ogolaanayno caasimadda ama kursiga dowladda oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa anigu waxaan dhihi lahaa hana laga qaado gobolada kale bal gobolkii yeelaya xaqna ma yeelanaysid cashuurtaadana waa qaadana maxay ahayd maamul goboleedna ma noqonaysid waa loo joogaa laakiin annagu waxaan rabnaa hadda waa nabadda aan rabnana waxay tahay in gobolkii banaadir 17 degmo in ay xaqoodu helaan mar walba waxaa jira maayar iyo gobernatoore gudoomiyaha 17 degmo iyo duqa muqdisho waayahay su-aasha nadiif cali aan kugu celiyo su-aashaas waxaa mar walba la weydiinayaa dowladda dastuurka wuxuu ku ogol yahay gobolku inuu samaysto maamul dadku hadday xataa hal gobol tahay inuu maamul goboleed samaysan karo laakiin uu dowladda karo markii koobkii ugu dambeeyay gobolka banaadir meesha keliya oo ku populationka waa Somaliland Puntland ka shacab badan tahay Puntland galmudug ka shacab maamul goboleedka ka shacab badan tahay iyadoo isaas tahay ma laha wax maamula maadaama dastuurku u gol yahay dadka gobolka banaadir degan maxaa ka hortaagan inay samaystaan iyagu maxay u weydiinayaan in wax loo sameeyo dadka gobolka banaadir waa runta adoo aad u mahadsan dadka gobolka banaadir u dhashay waa dad aad iyo aad u ixtiraam badan aad iyo aad la jecel halkaas wax yar dadka gobolka banaadir waxaa loo yaqaanaa marka xaqiiqda laga hadlaayo dadaan wax maamuli karin dadaan ismaamuli karin dadaan mataqaanaa dowladnimo waxba ka aqoonin dad burcad ah dadaan qarannimo waxba ka garanaynin dad ummadda Soomaaliyeed halaagan u horseeday
intaasoo calaamadood waxa aad sheeganaysaa inaad gogol badanta inaad gogol u tihiin Soomaaliya inaad dulqaad badan tihiin laakiin inaad burcadda Soomaaliya tihiin waxna aadnan garanay waxna aadnan maamuli karin waxna aadnan samaysan karin ummadda Soomaaliyeed inta qaana marka isma qabanayse maxaad maamul qaadir ay leedahay dadka reer maxay u samaysan laayeen aan soo boodo horta haddii aan qof xun nahay beesha hawiye haddii qof xun tahay ama dad xun tahay ya gobolka banaadir ama muqdisho Soomaali maxamed ma ay joogteen dad xun haddaan nahay oo aan dadka soo dhawaysan oo gogol xariir aan u dhigin cidna nalama joogteen hadda federaal la qaatay 17 gobolba marka gobolka banaadir laga bixiyo 17 gobol oo kale dadkooda ayooda ka tashta gobolka banaadir sababta marka ayooda looga tashala ayahay waa annaga dambiga iskale annaga ayaa ah dadkii gobolka banaadir u dhashay dadkayna gobolka banaadir u dhashay oo ah dadka dulmanayaasha ah ayaa rabaa maamul inaan samaysano Soomaali maxamed waa walaalaheen waa isdhalnay wiil aftigiisaan nahay laakiin 17 gobol maanta aniga haddaan baxo gobolka Bay ama Baydhabo kama noqon kari xildhibaan ama gudoomiye igama dhigayaan Kismaayo igama dhigayo madadi dadku isku mid maaha maanta haddaan aad Hargeysa iyo Boorama ma noqon kari marka waxaa la gudboon in laga bilaabo maanta intaas waa la soo dul qaadanayay maamul gobolka banaadir ay leeyihiin inay sameystaan oo sharci u ah oo dastuurkuna u qoraayo dadka u dhashay gobolka banaadir waana soo dhaweynaa wayna dulqaadkeeda leeyihiin dhaqaalaheeda leeyihiin ixtiraamkeeda leeyihiin annaga Soomaali ixtiraamayna dawladda ixtiraamayna inaan maamul sida ugu dhaqsaha badan inaan maamul ku samaysano aad iyo aad waa soo halkaas su'aasha waxaan rabaa inaan isla markaas aan u sii gudbiyo laakiin inta aanan siin Xaliimo Diiriye waxaa la yiri tilkal ayaamu nadaawilaha bayna naas hadda waxaad sheegtay dulmanayaasha gobolka banaadir waxa loo yaqaanaa dadka dulmi jiray inay maanta leeyihiin annaga yaa dulmanayaala waa adduunyo hadba dhinac u jeefanaysa soo dhawow Xaliimo dadku u samaysan laayeen maamulka oo mar walba u leeyihiin waa nala dulmay iyadoo dastuurku u ogon yahay maxay tahay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمرك أقول إذا رأى لها ليجا هذا التليفون كي يقول لي overheating وتليفون كأجا نقدر ميلو كان نقدر ما أقانه صابت عشان قد كأوجا بحاجي وأسجع يقدم معي every 20 second ويسو قرأين وتليفون كي switch off نقطنا هي ولا عليه وايد سلامي ولا كذلك سوكرنا واسلامي Soomaalidu waxay tiraahdaa Axmedow hasho ayada cunay ayada ana cabaade ma garatay marka waxa weeye horta walaalahay waxaan la qabaa in gobolka Banaadir dhibka ka jira uu yahay dadka deegaanka oo meesha degan inay iyagu mas'uuliyadooda leeyihiin runta xaqiiqada waa in waa marka aan Soomaalidu waxay tiraahdaa xaaje aan sida maxay tahay dabariya loo ma fiyoobato runta waa in laga hadlaa cawada waxaan ogahay deep down markaan runta ka hadalno in boqolaal daawanaysa ay qorayaan qaran dumis iyo qabiilayste mana ahan sheekadu waxa ay tahay waa runta markaad ka hadasho xaqaaga u doodo Axmed qabiilaysta tahay Shiina waa qabiilayste nadiif oo qabiilka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa ku sheegay laakiin qabiilayste manihi ma garatay qabiilku waa markaan leeyahay qofku dul hebel dul taasna Ilaahay baan ka magan galay waxa weeye dadka gobolkan degan oo meeshaan degan in ay marka horeeto iyagu hoggaan samaystaan maalin walba waxa loo leeyahay lababa waa la iskugu daraa Axmedow labada la iskugu dara waxa weeye awalan sida aad ka dhawaajiday dadaan ismaamuli karin dadaan maamul aqoonin dadaan maxay ahaatay iyagu aan afar ila yacni wax allaala wax kasta oo xun hoggaamiye looga dhigo la yiraahdo ayaga sabab u ah ayaga hoggaan u ah markii wixii yimaadaan oo ayagii dadkii saalahaana maanta markii ay wax qabteen oo hoggaanka ay qabteen iyo kii hore hadana aniga uu igu leeyahay waxa aatay waxana wax uu idhaamo iyo dawladnimo uu soo kordhiyay iyo wanaag uu soo kordhiyay ma uu jiro hadduu jiri lahaana waan ku dayan lahaa waan raaci lahaa maanta maan qayliyeen laakiin waxa weeye maxay ahaatay waa wax allaale iyo wax uu keenay haba yaraatee waxaan dilkii uu isagu sheegay iyo maamul xumadii uu sheegay mid ka daran u dhigo oo kufsi iyo dhac iyo dil iyo biliqo iyo balaayo iyo wax walba iyo burbur iyo barakicin iyo gabar dumar jid ku dhala oo ambulance loo diido
waxaan ku dhahay wiil bajaaj wada la toogto dhibaato xabsiyo tuujar ka jiraan waa kuwaana bal maamulkii maanta haysaa intaasna aad ahaay markii qarax dhacana waa aragtay dhibaanta lala soo istaagaa ilaa 91kii baan kaaga aarsanayaa qaraxa dhacay waa kugu fiicantaa waa which means wax islaamnimada ku xun maxaa soo haray 18 gobol maxay ahayd jira in ay muqdisho kaligeed maamul yeelaweeda yaa mas'uuliyadeeda iskala waa in la isweydiiyo waxa iskala kuwa lagu tilmaamayo maamulna ma yaqaanaan waxna ma samaysan karaan waxna lagama samayn karo horta waxna lagama samayn karo waxna lagu bisar taas waa is cuntay 8 February 2017 u dambeysay nolosha dambe soo ma noqonayso عوضا وحا عدينا oo cadeynay 8 February 2017 ay taaso dhimatay waayo maamul iyo dal iyo dad ayaa lagu wareejiyay maxaad 16000 in aad within 3 sano ku dishay ayaa ka dambeeyay dhibanayaasha dadkooda lagu laayay awlaadooda lagu laayay gardarrada lagu la dilay anaa kamid ah oo u horeeya dadka xasuuqa loo geystay wiilashoodii lagu dilay gardarrada dawladda maxay ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo markay imaato dadka ay leeyda hooyada curadkeedii iyo curad ku xigeenkeedii ku weysay anaa ugu horeeya oo cawada halkaan fadhiya ma garatay marka waxa weeye kan qabee dil reer hebel way u dil waxaasi waxa weeye waa wax horta taas waa dhamaatay 8 February ayay dhamaatay gadaal ugu noqonay waxa way ragaan maalintii wax la dhaho oo la yiraahdo ugaasku hadda waa hadlay hadalkiisa markaan taageerno ma sii socona oo mid mira dhalaya ma ahaana oo mid laga dhabaynayo ma ahaana mase wuxuu noqon doonaa sida kuwii ka horeeyay beritoole villada inta looga yeero oo la yiraahdo villada imaaw la yiraahdo aamus dawladaa tiri canshuurta maalin walba laga hadlo la yiraahdo hadda waxaan arkaya gabdho dumara oo maxay tahay canshuurta wadanka maxay ahayd baalka anaka waa la ka qaada qasab waa la qaada Scottish iyo Ingiriisku waa afar waa UK ee ka tirsanta afartaas Welshka iyo maxay ahayd Scottishka iyo North Ireland iyo maxay tahay England ma canshuura la iskaga qaada gobol walba asaga iska leh dawlad walbana ayada waxeeda maamulata magaalada muqdisho meeqaamka waxa u diiday ragga u dhashay oo hoggaanka haya ayaa u diiday ayaga hooyo iyo aabba leedahay ayaga ayay hooyo iyo aabba ayagayna daris la tahay marka maantayna xaq darro waxa ninka todobada la soo dooranayo oo waa ninka gobolkiisa oo gol nin muqdisho ka dhashay inuu wax ka noqdo waa maya hargeysa waxa la xiray ninkii calanka qaataa la xiray maamul gooliyahana la heedeen ninkii muqdisho soo aadana nama matalay laakiin wuxuu ku matalaa magaca Somaliland ayuu ku matalaa oo uu ku joogo oo kursiga ku fadhiya taas cidina ma diidi karta cawada Puntland ninka ayadu Soomaaliya kama go'in aanay waxba kama noqon karo baydhabo waxba kama noqon karo kan ku lahayd xaqiiqada deegaana waa la ii diiday marka yaa diidan waaye dadkan xumaha yaa u horseeda yaa dhibaatada u keena waxa u keena waa ragga maamulkooda u madaxda ah waa raggooda waxa shacabkooda sababtay tahay maanta maxay dibiga qalal yiri weyshu ha ku qus qaadatee marka dumarkoodii gabdhaha jidka ku dhalaayeen gabadhii maxay ahayd gabadhii jidka ku dhashay Saynab la dhahay wiilkana qayro loo bixinayay oo 2000 iyo maxay ahayd iyo 18 la dhahay oo ambalaasada la xiraayay maxaa looga kici waay markay madaxdoodii lagu hordilay wiilashoodii tacliinta wata PhD ga soo wada dhamay wariyaashoodii lagu hordilay maxay uga kici waayeen gabaraa la dilo umula sawirada farmaajo la jaxjeexay waa kuwaas ahal yiri dawlad waxay ka yaqaaniin laamigay gubeen waa yeeydi qof ama qarax baa wuxuu ka dhacay 14 October oo dad lagu xasuuqay waxa la yiri 91kii baa idinkaga gooyay naasaha blo 2 dad lagu dilay 91kii baa la idinka magacseena 28kii baa ceelasha biyaha dad lagu laayay
waxa la yiri waa 91 bal arag waxa Facebook lagu qoray bal arag waxa meesha ka soo dhacay social media waxa lagu qoro oo qofkaanu ku soo qoraayo is deep down waa waxa uu aaminsan yahay waxay dhahdeen maxay ahayd macallinow gabadha waxay tiri macallinow waxa fashay waa in faatakum gabadha sheeg badanay shaydaan ilmihiisa ee khayr min aswaajikum marka waxa guryaha ka soo wada tashiilmayaan meelaha ka soo socdaan waxa ciyaalka ka tashlaayeen waa ciyaalka ka tashiilmayaan aniga kaale ila cun banaadir waa kula leeyahay ana aan kula lahaado gobolkaaga meesha aad degan tahay aan wada lahaano xuquuqda waa soo celinaya xuquuqda gobolka banaadir waxa ku tuntay oo banaanka ka dhigay dadkeeda waa ragga mas'uulka ka ahay gobolka banaadir iyaga u diiday hooyo iyo aabana ayagay leedahay waa soo celiye axmed aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa halkan waxa dhacay sida la sheegay qaraxii October dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa amniga inay sugto waxa la dhigay konton kun oo dhagax magaalada Muqdisho dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dhagxaanta inay naga qaado waxay dawladdu marka hadda aan arkaya dhagxaantii hore waxayaan 1 mitir mid 3 mitir in lagu bedelayo ka dheerkii hore dhalinyaradu waa ka boodi jireen madaxweynaha ka boodi karin waxa dhacay qaraxii ex control dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay ammaanka sugto waxa dhacay mudaharaadkii Boondere waxa la dilay marka dhalinyaradii soo aabushay mid kamidana wuxuu cararay baadiyo iyadoo waxaan dhageysanay la leeyahay waa ku dilayna waana ka daba imaanayna dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay wiilkan la ammaan geliyo waxa dhamaaday dhaqaatiirtii waxa lagu laayay gololey dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay soo qabato dadkii dadka ka dambeeyay waxa hadda mataqaanaa la keenay 8 senator oo maamul goboleedyo ay soo dirsanayaan dawladda baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay senatarada naga daayaan haddii dawladda iyo dhibaatooyinka dhacaya baarlamaanka iyo dawladdaba haddii sharafku uu kordhay goorma dadkan shacabka gobolkan jooga dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ay jooji doonaan ay fahmi doonaan danaha waxa iyaga u danta xaydar السلام يا حليم جيرو السلام يا نعيم قرن أترى وحيدين شيء يا عبد وحاس صعدة شرة صعدة شركة أو جوشة معمول سمين تقبل كبنادر إن شاء الله هدول إلى استحي طبعا كني واحد لما أنت نقول الفرحدين دتك هوية قاستان دتك قبل كبنادر يكون فرحان أي صوت صعدة إن شاء الله هدول إلى نيهو مد دولتان إسكندر عيسى وحكوا لنا دولتان إلا maalinkii dawladda la soo hadal qaado oo la tuugo tilaabteeda ay nooga farceli lahayd inay maaragtana dhegaysato dhagay faraha gashataa culeyska kii ka dambeeyay ayay saartaa waa siday sheegaysay naciimo qaran iyo xalimo diiriyo walaashay soomaali waxay tirahdaan imaadan shantaada kaa celin sharci kaama celin dadka hawiye khaasatan ahaan dadka gobolka banaadir iyaga ayay u baahan tahay inay maamulkooda samaystaan martida edabta leh si fiican in loo soo dhaweeyo martidaan edabta lahayn in la iska saaro dawladduna waa in lala xisaabtamaa sababta ay dawladdu u diidayso axmed aan kuu sheego waxay diidaysaa awoodda in lala qaybsado maxaa yeelay maamulka haddii uu samaysmo awoodda ayaa lala qaybsanaya canshuurta ayaa lala qaybsanaya dhaqlayaasha iyo dadka hoteelada beebeenta ku diifo iyo dawladdan igu sawirka canshuurta ay ku bixinayso haddii uu maamul leeyahay maamulkaasaa la xisaabtamayo dawladdu waxay diidan tahay jallanjiga maamulka gobolka banaadir maxaa yeelay maamulku wuxuu leeyahay canshuurta dadkaygaa bixiyo suuqyada iyo guryaha ayaa canshuurta laga qaadaa marka dawladda culeysaa soo koraya culeyskaas ayay diidan tahay laakiinse hadda hawiyuhu waa soo jeedaan dadka gobolka banaadir way soo jeedaan إن شاء الله هدو إلهي يرادو المعمول أو لغو ديرسدو أو لغو فرحو أو جالنجي عدك قبل كبنات الصود عنايو دولة للقى بسنايو معمول قبلانيو للقى بسنايو أي أسوس عدو إن شاء الله وانا هرقنا يا هدو إلهي يرادو waayahay muhiimad waxay tahay dawladda sharafta leh baarlamaanka sharafta leh dawladda sharafta leh baarlamaanka sharafta leh waxyaabaha qoraallo maanta la soo dhigayo waxay ahayd in
dadka degan beesha gobolka banaadir siyaasaddii lagaga adkaaday wax shakiyana mataqaanaa iyo wax isbeddela ay ka samayn karaan arrintan hadda taagan iyo go'aamada dowladda haba yaraatay inaysan jirin nadiifo horta marka ugu horeysa sida aan ka dhawaajinay walaalaheen ay ka dhawaajiyeen in maamulka gobolka banaadir sida ugu dhaqsaha badan ay dadka gobolka banaadir u dhashay ay u samaystaan maamul goboleed ayagu ay leeyihiin waxa indhaha noo yeelay waa caasimadiyaa la leeyahay waxba noo garaabaya ma lahan mar walba dulmalayaanaan nahay dulmane haddaan hadalno waxaa lagu leeyahay qabiilihiisaa tahay marka xaggee isku qabataa soomaaliya 4.5 wax ku doorteen madaxweynuhu beesha daaradoo ka yimiday ra'iisul wasaaruhu beesha hawiyoo ka yimiday ra'iisul baarlamaanku wuxuu ka yimiday beesha digl iyo milig marka qof walba cabdi xaashi aqalka sare wuxuu ka yimiday beesha direed marka waxaa la isweydiinaa war heede meel walbaba soomaaliya xildhibaankeedu qabiilow ku imaana kaabu qabiilow ku imaana annaga ma aanu gaarin dowladdeenu waxay noqotay federaal ma ahan dowlad caadiya oo dowlad soomaaliyeed ah ma aha waa dowlad federaal ah dowladda federaalka ah marka haddiiba federaal wax lagu qaybsana aniga maxaa xaqayga ii diiday maxaa dulmane iga dhigay waa midda la isku haysto ani marka waxaan u badnahay gobolka banaadir maadaama gobollada kaleba laydin leeyahay oo anigu aanan lahayn kan leeyahay maxaa ii diiday dowladda aniga wixii iga mudan tahay annaga hanagala xisaabtanto dadka u dhashay gobolka banaadir laakiin gobolka banaadir yaa waxaa lagu leeyahay federaal ma aha laakiin gobollada kale waa federaal laakiin muqdisho adigu ma lihid warweydi salaamay way maqlaysaa way maqlaysaa ilmaha warweydi salaamay cumar way taala maqlayaa waa lagu maqlaa marka hore soo dhawow jamhuuriyadda barakaysan waxaad nagala joogtaa somaliland aad iyo aadaan kuu soo dhawaynaynaa sida aad la socoto magaalada muqdisho dadka degan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin 3 milyan ilaa 4 milyan runtii mana leh xildhibaan mb matala haddana waxaa la yidhi senator gobol ka yimid 7 senator ayaa la keenay waxaa kaloo cajiib ah in ay puntland leedahay 13 senator halka banaadir 4 milyan degan tahayna lagu tilmaamay ama galmudug 8 ay leedahay 8 senator ayaguna laakiin banaadir ay leedahay la yidhi 7 senator la siinayaa oo ay intaana ay ka population badan tahay ujeedada ka dambeeya ay tahay mataqaana arrimaha ka dambeeya ujeedda badan waa maxay markaa bal adiga aragtidaada inay muqdisho sidaa u dulmanaato canshuur bixiye iyadu ahaato shacabkeedu sidaa dhagxaanta ugu go'naadaan matalaadna aanay baarlamaan ku yeelan matalaadna aysan ku yeelan aqalka sare waxba aanay yeelan 7 senator oo hadda la keenayna ay ku soo kordhinayaan canshuur bixiyaasha muqdisho meel kaloo canshuur bixida ma jirto 840,000 taa loo soo dhawo bal adiga aragtidaada taa lama naqasho dhammaantiin waa idin salaamay walaalahayga barnaamijka ku jira hablayeena ma wada salaamay dhammaantiin waa idin wada salaamay salaan qaali aan idin soo diray wallahi aniga fikirkayga waxaan qabaa muqdisho dee hore ama loogu heshiiyey oo soomaali mala way u heshiisay muqdisho in hore loo yacniga markii federaalka waxa la yidhaahdo etoobiya laynagaga keenay innagu waxaynu naqaanay maaha waxaa la yidhi 2 gobol iyo barhba waxaa laga dhigayaa maamul goboleed markaa muqdisho meel lagaga soo daray dee weli alaankaa ma hayno iyo wax loogu talagalay toonna taasna dhaxalkeedu wuxuu noqday in muqdisho oo keliya cashuurta laga qaado 18 gobol ee kale muqdisho uun laga qaado cashuurta muqdishona ay bilaa madaxweyne noqoto oo madaxweyne dee hadduu doono ka yimi meeshuu doono ka yimi oo dadkii aan kala ogeyno aan amnigeeda sugi karayn uu mas-uul ka noqdo isaga lagu cambaaray waxa muqdisho ka dhacay layaa maxaad wax uga qaban weyday marka madaxweynihii dee ummadda soomaaliyeed ku yimi codkeedee ahaanu madaxweynan u ahay muqdisho dee waxba kama oga waayo nin dee muqdisho laga soo doortay ma aho shacabkii muqdisho wax la wadaagi karaya oo amni ka dhigi karaya marka ummadda soomaaliyeed unbuu ula mid yahay in keligii lagu eedeeyo layaa muqdisho maxaad amni uga dhigi weyday dee kama dhigi karo ummadda soomaaliyeed buu ula mid yahay marka waxay u baahan tahay muqdisho dee waxa amni in laga dhigo oo madaxweyne lagala xisaabtamo oo laga soo doorto muqdisho ay yeelato dee sida maamulada kale oo xilka laga qaado hadduu amni ka dhigi kari waayo oo la bedelo
oo la soo doorto shacabku soo doorto buu u baahan yahay iyo dee xildhibaano iyo golo deegaan bay u baahan tahay muqdisho mushkiladda ugu weyn ee dhibaatada ugu weyn ee Soomaalidu aanay ka fikirin waxa weeye war dadka reer muqdisho kaliya maxaa kaligood cashuurta looga qaadaya dalkii intii kala meeday marka waxa weeyaan waxa federaalku waxaynu ku wareeray waxaynu afkaranayna maaha ku meel gaad hadduu ahaan lahaa dee ku meel gaad baynu odhan lahayn laakiin ku meel gaadkiina waa laga saaray dee Soomaali madaxay iskula wada jirtaa dee marka dadka reer muqdisho dhibaatadaas waa la arkayaa ummadda Ilaahay bay way arkaysaa in dhibaatadaas laakiin taalo sideed u aragtaa waxaan ognahay Somaliland inay maqan tahay waxa baarlamaanka u jooga 60 iyo xoogaa xildhibaan oo muqdisho saldhigood yahay in la yiraahdo marka 7 senator baa la keenaya senatoradaasna mid kamid ah Somaliland oo ka imaanaya iyagoo kuwii hore aanay Somaliland xataa waxba ka metelin banaadirna ma laha wax metelaada ma leh aragtidaada arrinta annagu ma aan diidanin reer Somaliland waa dad walaalaheena ma aan diidanin qof inuu ka yimaado laakiin kuwa hadda jooga 60 ka xildhibaana Somaliland waxba ma qabtaan muqdishona waxba kama qaban karaan waxay la mid yihiin sida xildhibaanada kale marka in la yiraahdo 7 senator baa la keenaya mid kamid ah Somaliland oo ka imaanaya mid kamid ah Puntland oo ka imaanaya mid kamid ah Galmudug oo ka imaanaya mid kamid ah Koonfur Galbeed oo ka imaanaya kuwaasa baarlamaanka ku metelaya gobolka Banaadir aragtidaada dee wallahi waa jahwareerkii ummadda la sii jahwareerinayay baan ugu arkaa waxa weeye muqdisho inay golo deegaan yeelato oo iyada u gaara oo la soo doortaa loo baahan yahay golo deegaan oo la soo doortay bay u baahan tahay waxay u baahan tahay madaxweyne sida maamul goboleedyada kale oo kale waxaan u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay gobol walba dadkiisa populationkiisa in loo xisaabiyo u baahan tahay qaar baa gobolnimada waayo qabyaalad lagu sii hadama garata hadii la xisaabtamo marka waxa weeyaan way isku dulman tahay Soomaali dee marka way isku dulman tahay Soomaali imakaas laakiin waxay Soomaali u baahan tahay imaka dhiig joojin baa loo baahan yahay maadaama muqdisho amni noqon weyday dawladu waxay ku jirtaa in muqdisho faraha looga qaado maamulkeeda oo dadkeeda muqdisho faraha looga qaado haddii kale dee anu meel lagaga mala magdhow baa laga doonayaa muqdisho dee anu cid ka aarsanaysa garan maaye waxa weeye muqdisho in haddii 30 sanadood amni ay noqon weyday war muqdisho dadkeeda faraha looga qaado haddii la doonayo dawladda Soomaaliya ka bacdina aan xisaabtano waayahay adigoo aad u mahadsan taasana waa aaminsan ha aad u mahadsan tahay waxaan ku soo dhownahay waqtiga aan barnaamijkan haddii ilaahay muddo soo afjari lahayn amnigii farahu ka sii baxaya midda kale hadda dhacday waxa weeye dawladda intii hadda ay joogtay shirar badan oo dhacay shirarkii waxay dhacday waxaa kamid ah shirkii mudulood oo muddo dhexe dhacay hadda hal maalin ah oo dhacay dhowr bilood ka hor waxaa la isku dayay in la joojiyo annaga waxaan ka hadlaynaa inay dadku maamul samaystaan dawlad samaystaan oo maamul goboleed samaystaan shirkii mudulood inaanu dhicin waad ogtiin waxyaabay media ka dhacayay waxaad ogtiin in la isku dayo waxaad ogtiin cali mahdi inuu si adag uga hadlay in aan loo diidi karin mudulood shir annagu waxaan ka hadlaynaa xaquuq iyo maamul laakiin ma shiri kartaan inay maanta taagan tahay magaalada muqdisho xalimo deeri axmed waa mahadsan tahay waxa weeye horta shirka mudulood waxaa isagana ka horreeyey shirkii beelweynta habargidir oo ka dhacay hubyo waxaa iyadana la socotaan in la diiday oo shirkaas qof muqdisho ka tagaya inuusan aadi karinin dhaqaale inaan lagu bixin karinin hagardaamo badan in dowladda u geysatay dhibaatooyin badan iyo hanjabaad inay u dirtay yacni weerar aan yacni qarsoodi lahayn oo isir yacni aad u xun oo isir nacayb ah inay dowladda ku dhaqantay taas way taas tii ayay la mid tahay midda muduloodna waa isla meeshii waa iyadayoon biyo la marinin waxay ku salaysan tahay anigu waan shiri karaa beelo Soomaaliyeed ayaa ku shiray haddii la dhaho yaa ka mida beesha uu madaxweynuhu ka soo jeedo magaalada muqdisho ay ku shireen caabud waaq ma ahayn meesha ay ku shireen gada iyo garbahaareyna ma ahayn meesha ay ku shireen waxa ay ku shireen magaalada muqdisho
sababta mudulooda oo maxay ahayd xuduntiisii ku duugan oo magaaladiisa uu yahay la dhahay kuma shiri kartid oo ma yeeli kartid miyayna qabyaalad ahayn miyaysan maxay ahayd aniga aan noolaado adiguna ma noolaa kartid aysan ahayn yaasa ka sii daran waxa ka sii daran ninkii ogolaaday waxaan arkaynaa oo aan u jeedaynaa maxay ahayd in ay jirto wax la yiraahdo isirnacayb adigu ha noolaan anaa noolaanaya ma garatay aniga ayaa noolaana aniga ayaa iri maantayto maxamed cabdullaahi farmaajo shalayto waxaa ka horreeyey mudane xasan sheekh maxamuudaa ka horreeyey xasan sheekh maxamuud markuu ka horreeyey si sharaf iyo wanaaga ayaa kursiga loogu wareejiyey dagaal looguma wareejinin kursi dhiig iyo dhib iyo qaxar iyo dagaal iyo xoog iyo qori lagala soo horjeestay ma uusan ahayn doorashuu soo galay sidii la doonaba ha lagu doorto sidii la doonaba ha ku yimaado wuu yimid maxay ahayd 4 sano markay dhammaato inuu doorasho soo galo ma soo galayo xoogan ku joogaan maxay ahayd baalkii iisha wax ma garato oo meesha usoo dirsano wallahi 20 sano annaga haysanayno annaga kursiga haysanayno wax 20 sano la yiraahdo 20 sano kii horeeto haayaba wanaag iyo maxay ahayd taariikh iyo wax fiican iyo wax wanaaga kama taginin kana ka tagi maayo maalin walba marka maxay ahayd gobolka banaadir muduloodku ma shiri kartaan hadii la yiri waxa waaye waa dibiga qalweysha ku qusqata gurigaaga waxa lagu tusay oo lagu sheegay in aan awood kugu maquuninayo sida uga gilgila laheedna adaa la rabaa marka wiilkaaga lagu sida hadaaya biro marka wiilkaaga lagu hor dilay gabadhaadi lagu hor kufsaday suuqii aad ka maxay ka adeega weeday dhagxaan albaabkii lagaaga xiray oo inaad neefsato lagu diiday lacagtana keen lagu yiri fad ama ha fadin waa lagu fadsiina ama rab ama ha rabin waa lagu rabsiina haddaad shaqaysatay iyo haddaadan shaqaysan aniga waxba igama gelin lacagta waa inaad dhiibtaa hadday taagan tahay oo hadday jidka iga xirta canshuurta xagee ka keenaa waxba aniga igama gelin waa inaad dhiibtaa marka gobolka waxba lagama waayo dadkan ayagaa la rabaa aayahooda inay ka tashadaan dadkan ayaga ayaa la rabaa in ay siday u noolaa lahaayeen وانا سوء علي احمد هذا ما سنت وركاس واحد هي ولا لا يا قد كجرا دونيا انه ارمها قبل كبنادر waxa jira oo ra'yigiisa ka dib ku soo dhawala wala wada dhamaanta waan salaamayaa bilaw meesha magacaaga iyo meesha aad joogto magacaygu waa engineer waxaan joogaa dalka Norway ku soo walaal salaamayaa hawaasha waxaan doonaya anigu kaliya inaan laba qodob ka hadlo labadaas qodob midna waa gobolka banaadir midna waa horta qaabka dadka ay u wajahayaan dowladnimada Soomaaliya horta dowladda Soomaaliya markii aan dowladda Soomaaliya aan ka hadlayno maan anigu kulli uga soo joogin oo ma soo arkin waxaan maqalaya qoraalka ahayn waxaya dowladda dhexe burburtay waxaan doonaya wixii ka dambeeyay oo aragtidayda ah inaan halka ka dhigto حوي ماشان وحصل مري دولة بدن وكل بي فرمان عبد الغاسم صلاح حسن علي مهدي كسب له إلا يوم عطي محمد عبد الله فرمان شهادة الطلبة حياة وحنكون له مركان أفريقيا كان صوماليات يدرس أوترينية وحكي الدنيا يكوي هربته المستشفى عن مركان أفريقيا ويشرب وحياة كل الدنيا لما أنتم حياة عايز سوق قبتين بيت وبالآن كوحة في عقف اللي يروح على تاكسي أو تقطع إنك استو إن بنيك وكذا ونكسنا صوب السلالة هذا حاجة أبين نقطة هذا حاجة دقارة نقطة هذا حاجة أبوان نقطة مصدقه وكذا وصح ولا معناه وجدوا معها إن ماركتي كمبير كل سماينة إنه مراح يقولك الأمر إنه والباوع وصوتك جدوا أنت حتى كان قبل كبنادر حق متهي in la yiraahdo toddoba xildhibaan uu leeyahay oo maaragtay maamulada senator buu leeyahay xildhibaano male kow sidoo marka koowaad asoon xildhibaano lahayn oo senator ku helay midda labaad sidoo u yeeshay uga senator yaraaday hadiiba senator la siinayo maamul goboleedada midda saddexaad sidee maamul senator gobol ka yimid u matalan gobolka banaadir waxa aan ka hadlaynaa waa arinta la xiriirta gobolka banaadir iyo marxaladda hadda taagan iska ilo wixii hore
thank you horta totally waxaan la aqbali karin lana qaadanayn ana ka soo horjeeda waxa waaye todoba xilmood loo soo magacaabo gobolka Banaadir ama senatorod ama dad meel kale ka yimid hamataleen gobolka Banaadir dad qof kasta oo Soomaali oo madaxa waa matali kara ummadda Soomaaliyeed laakiin waxa loo baahan yahay qawaaniinta in lagu saleeyo qaabka uu ku matalayo gobolka laga soo doortaa madaxweyne Soomaaliyeed dadka wasaaruhu waan ognahay xildhibaanada sidoo kale taliyaha ciidanka magaalada Muqdisho waxa uu ka dhaawacay sidee qof oo arin jahwareer weey laakiin sharci uma laha dadka reer Banaadir in dad gobollo kale laga soo doortay aan magaalada Muqdisho ku dhalan aan deegaan u ahayn inay maamulaan ama xil loogu dhibato tiri xaq uma laha qofku Muqdisho waa inuu xil ka qabto wuxuu noqon karaa muwaadin Soomaaliyeed uu u tartami karaa xilka noocu doonaan oo xilka kale laakiin marka deegaan laga hadlayo deegaan dadka u dhashay iyo dadka degan ayaa laga soo dooran karaa dadku ay ku wareereen waxa weeye waxna aqoon xumo keenta waxna waxa keena maalka ay sheegay duruufta keenta anigu uma jeedo duruuf maanta keeni karta waxa weeye sababta waxay tahay ninka reer Banaadir ama ninka maanta gobolka u dhashay maalka isagay gobolka Banaadir u dhashay kama noqon karo galmudug ee senator ma fariisan karo caasimada dowladda ma tagi karo Puntland ma tagi karo Kismaayo ma tagi karo Hirshabelle ma tagi karo sabab marka ayaga loogu qasbo anigu garanayo marka waxa weeye dadka lagu abuuray in dadka la iska horkeeno waana arrin qaldan cidii ka soo shaqaysay cidii u katiyay cidii dowladda inay hirgelisay waxaan aaminsanahay waa dad dib u dhac ummadda Soomaaliyeed ka shaqaynaya anigu arkaas waxaan aaminsanahay totally meeshu ugu sheegay in lagu daayo oo aan dadka la iska horkeenin baan soo jeedin lahaa adigoo aad u mahadsan waxa inta dheer waxaad ogtahay maamul goboleed canshuur bixiya oo contribution dawladda siyaabo yaraatay uu jirin waxa dawladdu ku shaqayso ama dhaqaalaha ay ku tiirsan tahay waa dhaqaalaha gobolka Banaadir waxa la yiri 7 waxa loo keenayaa 7 senator oo 4.5 lagu keenayo taasana keenaysa in gobolka kale ka yimaadaan inta waxa dheer ma waa ku fahmay waxaan u socdaa meesha u socdaan ku tusaya waxa marka maadaama ay runtu sidaa tahay 7 senator mushaarkoodu waa 840 sanadkii ay ku soo kordhinaysa cashuurta magaalada Muqdisho oo ay mushaar ahaan u qaadanayaan marka inay intaasoo dhaqaale ah oo ku soo kordhiyaan oo culaysa haddana ay yihiin dad aan gobolkii ka imaanin haddana aad ogtahay maadaama gobol ka imaanin inaan waxba ku soo kordhinaynin amniga iyo kala dambeynta inay dhibaato u keenaan maahane ma isleedahay arrintan waa arrin aad loogu qaldamay ciddii ka soo fakartay ama keentana ay tahay inay hadda kansasho inta aysan dhibaato kala abuurin horta laba baan inay kansasho cidda loo keenay ayaa la rabaa inay karo saarto oo kansasho oo tiraa meesha arkateen ku celiya dadku cid waliba gobolka ay degan tahay ayadaa u leh ayada awoodiisa askala ayadana ka dhiibi karta saxdiisa iyo qaladkiisa horta totally anigu ma lihi ana afkayga ku leh dadka ka soo fikiray meeshaasi waxaan meesha kala yimaadana hagayeen ama qashiga ku dareen cid ka aqbalaysa cid ka qaadanaysa ma laha midda kale waxaan federal systemka lagu leeyahay oo federal marka lagu leeyahay dowladaha federaalka hadda dowladda anagu aan ku noolnahay waa naqaana qaabka federaalka u shaqeeyo Muqdisho waxay u baahan tahay haddii federal lagu shaqeynayo ciidanka magaalada Muqdisho ka shaqeeya ciidan Muqdisho ku inay noqdaan dhaqaale Muqdisho u gaara inay yeelato system iyo maamul iyo maxkamad u gaara inay yeelato madaxweynuhu inuu xaafadu dhiglay inuu degan yahay oo dalka uga taliyo intiisa kala sidoo baalkii shaqeeyay garoowe u maamulayo inuu Muqdisho u maamulo rabaa laakiin Muqdisho guri asaga uu leeyahay oo asaga gobolada kale ka xigo inay dawladdu ka tahay ma dawladdu u dhaxaynaysaa waxa inta madaxtooyada ka baxsan waxaan hayn xaq uma lahan marka federalism laga hadlayo in dawladdu ay faragelayso malaha hadday tahay gudoomiyahooda hadday tahay marka shaqay xaafadahooda marka shaqay degmooyinka dadka u dooranayaan hadday tahay marka shaqay ciidankooda iyo amnigooda hadday tahay waxbarashadooda hadday tahay canshuurtooda in taasba gobolku asaga u madax banaan lacagta banaanka ka imaanaysa ama haddii shidaal la qodayo ama khayraadka dalka ka dhacdo waa loo qaybinayaa qaybta caasimad ahaana waxbay ku qaadanaysaa gobol ahaana waxbay ku qaadanaysaa markii federalism laga hadlayo laakiin dadka waxba askaga qaldan معارك اللي يخليه فدرالك معها سودان لا أولون كويه فدرالك معها سودان مركب وادو أيقو إسير سنة ومدة الصوماليات لو إني تجاوريريان ويه ضد معها حقيقة ضبطها
ama macnaha dowladnimo Soomaaliyeed inay horumarto u baahan aan wali malin jeedo dadka u taageersan macnaha الحقيقة دولة هذا الشركة dadka aad ku taageersan maan kamid ahay laakiin marka systemka fiiriso anigu ilaa anigu dadka ma taageero walaal mushaahil ma siiyo dowladana uma shaqeeyo waxaan ku taageeraa xawiyada dadka Soomaaliyeed ama hagaaga laakiin haddana marka aad umad ila iska warkeenin ma noqon kartid qof tuuga markaad beenala sabab ku ka markaad been ku furan anigu garanayo ilaahay aan la hortago waxay xadiidan ku federal yahay federal waan garanayna jarmal federal Ethiopia federal Mareykan federal الدنيا انت ugu marsan dunia ugu marsan ama Afrika noqoto ama Asia ama Europe waa federal waa federal kama dadkan gobolkooda ayaga u madax banaan weey gudoomiyaha laga bilaabo ilaa ay waxa ka hooseeya sida bani gudoomiyaha Orfeej gudoomiyaha waxay leeyihiin soo doortaan hadda waxa lagu leeyahay for example waxa madaxweynuhu isagay qof iyo cod baa la dooranaya caasimada ayay ahayd inuu ku tijaabiyo kana bilaabo asagu hadduu doonayo qof iyo cod شيء دغمش dadka maamulaya aad waxa halka waa asqarxis waa bal umada la iskaga dhex tuurayo siyaasaddan ilmaha siyaasad ku fadhiisa dhaqaale siyaasad aqal lagu fadhiisa siyaasad laga fiirsaday midna maan dadkii ka tashan lahaa oo umada Soomaaliyeed maanta hadda waxa jira xisbiya jira waxa jira maamul goboleedyo jira laga tashan doorashada dalka soo doorasho u gali lahaa marka waa nooc min al-xog adarka sida la smarsiinayo marka waliba taagtiisa qodob tagtaabaa leeyahay aad waad mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaad la gudboon shacabka gobolka Banaadir aragtidaada hadday tahay aqoon yahanin ama dadka deegaanka ku nool maxaa la gudboon qaabkay u wajihi karaan arrintan hadda taagan mana isleedahay dastuurku xaquuqda uu siinayo way garanayaan maadaama anigu aan dastuurka intaan ka ogahay ay gobolku xaq u leeyahay inuu maamul samaysto haddii uusan gaarin xataa labadii gobol oo la sheegay xataa inuu maamulkaas xaq u leeyahay inuu dowladda dhexe hoos tago laakiin ay maamul samaystaan misleedahay way fahamsan yihiin xaquuqdooda dastuuriga maxaase la gudbo shacabka dadka Soomaaliyeed waa dad lagu awrkacsada wey kan hadda waa noqoto ama mid soo socda noqotee waxaan leeyahay horta nin madaxweyne u tartamaya waxba ka dhigaysanina ama nin madaxweyne ah dadka deegaanka aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo dadka deegaanka u dhashay qof waliba deegaanka uu degan yahay asaga iskale dadka deegaanka u dhashay inay maamul samaystaan soo doortaan gudoomiyaha gobolka soo doortaan gudoomiyaha in ay ka shaqeeyaan ayaga looga fadhiyaa kuwa hadda mucaaradka ah shalay madaxweyneyaal bay ahaayeen waxaa laga lahaa u sameeya caasimadan meel ku sheega xaquuqdeedii iyo miqaamkeedii meel ku sheega way iska dhaga tirayeen maanta waa ku xumays sababta jacayl mahana sababtay farmaajo ugu bushkareynayeen waa ku xumays marka tugdalay oo walba oo xilka ka degay ama kana noqoto ama kuwii hore noqotay dadka reer Muqdisho inay dhageystaan ma waxa way caasimada dadka degan waxay xaq u leeyihiin odayaashooda iyo dhaqankooda iyo siyaasiyiintooda dad ka madax bannaan siyaasadda ee gobolka u gaaray inay ka shaqeeyaan soo dhistaan dowladda u geystaan haddii dowladdu diido Soomaaliya haddii dowladdu diido waxa way qofka hadduu xaqdarko markaas waa iska dhicin kartaa aad iyo aad walaalkay aad baad mahadsantahay waxaan u malaynayaa inaad maaragtay ra'yigaaga dhiibatay waqti kugu filan aan ku siin waa mahadsantahay thank you waayahay waxa la soo gaaray waqtigan barnaamijka soo gabagabayn lahayn waxaan rabnaa marka inaan su'aashan wareejiyo shacabka Muqdisho talama naqashaa hello ma filaayo inuu talana maqlaayo waayahay ku soo dhawaaw xalimo maxaa hayo waad la socotaa waxyaabaha dhacaya marka maadaama ay arrintii noqotay in senatarada noocaasa ayagoo baarlamaanka aynan ku lahayn MPO ama aan matalaad rasmi aysan jirin hadda matalaad forgery inay timaado ama copy oo meelo kale laga soo min guuriyay ay hadda taagan tahay maxaad is leedahay waa la gudboon tahay way kaga badbaadi karaan dhibaatooyinkan hadda taagan soo dhow السلام عليكم احمد عليك ما اسي سمس تاكو والله الويد aniga walaal way salaamaya dhamaantiin waxay la tahay dadka reer Muqdisho ay tashadaan oo taladu gacantooda ay ku jirtaa ay tashadaan waayo amniga wax ka horeeya ma jiraba meesha hadaan amni jirin nololba ma taalo
marka maadaama amnigii 30 sano ka soo reyn waayay muqdisho inay dee amnigeeda ka tashato oo ay maamulkeeda samaysato oo ay golaheeda deegaanka samaysato oo baarlamankeeda samaysato dee weeyaan oo dulmiga laga daayo Soomaali dulmi bay ku haysaa muqdisho malaa Soomaali baa dulmiday waxbaanu ka qabanaynaa bay yiraahdeen dulmi bay ku noqdeen wixii ay ka qabanayeen dulmi buu ku noqday bal mar qura inay ka hoos baxaan oo ay nabad geliyaan dadka reer muqdisho oo dadkan filla Soomaaliya fadhiya 18 gobol ka yimi dawlaysatada ay faraha ka qaadaan oo dadka deegaanka faraha uga qaadaan ayaa loo baahan yahay oo ay dhaqaalaheeda iyo cashuurteedu amniga lagu sugo oo wadooyinkeeda lagu horumariyo oo cid lagala xisaabtamo ay yeelato muqdisho Soomaaliyana cid lagala xisaabtamo ay yeelato muqdishona cid lagala xisaabtamo ay yeelato Soomaaliyana wixii ay ula timaado muqdisho ay ula timaado muqdisho caasimadda bayna iska badaayo gobolada kale Soomaaliya ay ula mid tahay wixii Ilaahay ka siiyay arkaysaa ay ka qaadanaysaa laakiin waxa muqdisho iyo isku cuna duubay iyo dadka Soomaaliya ka yimi 18 gobol ka yimi waxa isku cuna duubay anu ma garanayo 18 gobol dadkii ka yimi Soomaaliyeed baa muqdisho cunahaya marka amnina kama dhigi karaan horumar iyo nolol uma ogola marka dadka reer muqdisho iyagu ha kacaan nimaa hadloon habartiina wax ma siisee dadka reer muqdisho ha kacaan oo waxa samaystaan amnigoodana ha sugtaan cashuurtoodana anu imika wadanka Faransiiskan joogaa waa 24 gobol 24 gobol madaxweynuhu caasimadu fadhiyaa nin baa ka mas'uulo madaxweyne leeyahay Conseil General leeyahay cashuurta waa la qiimeynayaa dawladdu haddii ay wax looga baahdo way kabaysaa gobolka way kabaysaa qaarna lama kabayabe ayagaaba markay badhaadhaan ay wadooyinkooda dhistaan wax qabsadaan horumarkooda samaystaan amnigooda sugtaan mushaarkooda bixiyaan ayaga dawladda wax tara qaarkoodna marka waa la isu miisaamaya laakiin muqdisho quraal cashuuraya muqdisho Soomaaliya oo dhan mid doojinaysa Soomaaliya oo dhan baahideeda waxbay ka qabanaysaa cashuurta muqdisho war meeshan dulmi baa ku jira oo aqli meeshan ma jiro marka waxay la tahay inay Soomaali dib isugu noqoto ay tashato way salaamay dhamaantiin aad baan idinku mahad celinayaa wariyaha iyo ablahada inta kale ku jirto barnaamijka soo gabagabeynaa insha Allah waxa halkan lagu soo qoray dastuurku wuxuu sheegayaa laba gobol iska daaya muqdisho waxay ka shacab badan tahay maamul goboleed kasta oo Soomaaliya ka jira ay ka shacab badan tahay waxaana xaquuq uu leeyahay gobolka xataa inuu noqdo maamul goboleed laakiin uu dawladda hoos tago asagoo hal gobol ah ayuu xaq u leeyahay marka waxa lagu dabaqayaa muqdisho inay hal gobol tahay aysan maamul goboleed yeelan karin taa macnaheeduna waxa weeye waa inuu qofka sidaa u fakarayaa inuu eego in muqdisho 18 gobol oo Soomaaliya gobolka meesha kaliya oo canshuurta qaada oo canshuurta bixisa oo dawladdu degan tahay oo dawladda dakhliga ay ku shaqaysa sida muqdisho inay tahay marka inaan dhaqaalahana laga qaado intaasoo hantiyana ay dalka soo geliyo dawladduna ay ku shaqayso inta heerkaas gaarsiido markii maamul yimaadana la yiraahdo waa hal gobol aqli iskabaya ma aha waa arrin ay tahay dib loogu noqdo marka waana aad mahadsan tahay ra'yigaada ood ku mahadsan tahay qofka halkaa ku soo qoray marka gabagabadii xaliimo maxaa la gudboon shacabka gobolka Banaadir maxaad soo oran lahayd hadalkii ugaaska in laga yiraahdo soo dhawaada السلام عليكم أولاً هرتا وحوي دتك مقدشو شعب مدح أيا لكليها شعبكو قد أي ليهين معنتي أو أي يجو موجكران هدي هدلان وحا أركتي أيا مانتي هدلان مع إسلام مانتي دولة نقالكو بحدا وحول بكو بحدا أو وحا كمدا قبر أموله اللي أيا أوجين فالكي laga fal celiyay iyo dibkii wax laga celiyay social media iyo dhibaato loo soo diraa oo dadka lagu bahdiraa lagu dhibaateeya madaxdooduna madax warkooda afka maxay yacni uu dhaafsiisan yahay faruuriyaha baarkooda yacni baarkooda ma aha waa la hadlaa hadalkuna halkaas uu ku dhaada cidii la doonaa la dilaa cidii la doonaa dhibaato lagu sameeya wax kale ma ay jiraan waxay rabaan wax si dhab ah looga hadlo si dhab ah loo qaado haddayna dadkan maxay ahayd shacabkuna aayahooda aysan ka tasha karin
qofkii wiilkii maanta iyo gabadhii maanta banaanbax soo istaagana gurigooda inta loogu tago ama meesha uu taagnaaba lagu dilaayo ama isla markiiba inta dhacad loo soo diro la daba kacayo la dilaayo waxaasi waxa weeye wax wanaaga ma aha shacabka muqdisho madaxda dadka gobolka banaadir wuxuu leeyahay dad madaxda ayaa laga rabaa in ay waxa ay ugaasyada iyo salaadiinta iyo dadka cuqaashta in ay waxa dhab uga hadlaana laga rabaa sababtay tahay aniga walaa nadiifa walaa cid kaleeto saddexdeena maanta inta tagno gobol kale waxba kama noqon karno hadday tahay dowladnimada la isku abuse garaynayo tahada meesha taana gobolka meeshii la raba hala geeyo meeshii la rabana ha loo qaado reer muqdisho aayahooda waa inay ka tashadaan maxay ahaatay waa inay u istaagaan dadnimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda waa inay soo ceshadaan kuna ogaadaan dastuurka waxa ku qoran iyo waxa uu yahay ma ahan anaa meel kale kaaga imido adaa ku maxay ahaatay anoo adiga aadan waxba iga noqon karin adaa wax kaa noqona waa edab darro maxaa soo ugaaska maxay ahaatay hadalkiisa waa ta'kiidinayna waana maxay ahaatay yani maxay ahaatay waxaan leenahay kelmadda aad tiri iyo hadalka aad tiri yuusan noqonin kuwii hore kale waa inuu noqdaa mid dhab ah waa inuu noqdaa mid miro dhal ah waa inuu noqdaa mid aad dadkaaga u tiri waa mid uu noqdaa mid deegaankaaga ka dhaqan gala waa inuu noqdaa mid si dhab ah iyo hadal waayeel iyo hadal ugaas waa inuu hadalkaagu noqdaa midna waa inuusan noqonin mid wixii la doono gadaashaada laga sameeyo wuxuun waa inay noqotaa sheekadu sheeko dhab ah oo aan looma noqdaan iyo loogama magacsanada waa soo celiya axmed aad u mahadsan tahay dhammaan waxaan weydiisanaynaa walaalahana daawanayo dhan inay sheergareeyaan ay la wadaagaan ikhtiyaarta kale sidii barnaamijkan u gaaro dad badan ujeeddadayaduna waxay tahay in aaraadooda dadka iyo ra'yigooda ra'yigeenna iyo ra'yiyada dadka iyo waxyaabaha hadda dhacaya inay dadku gaaraan ay ka fal celiyaan hadday sax tahay iyo hadday qalad tahayba marka fadlan intiinan daawanayso dhan sheer dhaha oo gaarsiiya walaalaha kale waxaan kaloo idinka codsanaynaa barnaamijyo waxaan bilownay aad u xiiso badan barnaamijyada ka mid tahay barnaamijyada isdhexgalka iyo arrimaha guurka oo kale oo aan asbuucii hore daaha furnay waxaa soo fariisan doonaa sabdiga haddii ilaaha idmo xaliimo deeriye iyo nadiifo qaran ayaa nala soo fariisan doona waxaan haynaa maaj badan hadda wiilal iyo gabdho liis aad u tiro badan marka haddaad rabtaan barnaamijkii idin dhaafa inaad ka daba tagtaan ama aad rabtaan barnaamijka aad danaynaysaan linkiga la socda Gorgata TV subscribe YouTube-ka wixii ku dhaafa sidaad ula socotid haddaad tahay qof dhalinyaro ah oo raba ama gabar cuslaatay ama oday cuslaaday intaba oo raba barnaamijka inuu ka faa'iideysto runtii jabajiblo halkaan oo nooga imaan kara habeenka sabdiga haddii ilaahay idmo runtii ilaa haddeertaan waxaan haynaa 20 ku dhowaad qofood oo labada dhinaca laakiin weli isuma aanaan gudbin haddii ilaahay idmo barnaamijkaas wuxuu bixi doonaa habeen kasta oo sabdiga subscribe-ka dha YouTube-ka si aad ula socoto waxaan rajaynaynaa in barnaamij xalgala noqdo haddii ilaahay idmo dadka Soomaaliyeedna wax badan kusoo kordhiya nadiifo ugu dambeyntii waxaa la gudboon shacabka reer Muqdisho iyo hadalkii ugaaska waxaad ka oran lahayd soo dhawow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar kalena waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo weliba TV-ga Gorgaarte iyo walaalaha nala wadaagaya walaalkay Somaliland iyo walaashay Xaliima iyo adoo noo xiriirinaysa horta anagu waxaan u baahanahay gobolka Banaadir sida muuqata shacabkii ayaa dayacay shacabku inay maamul goboleedkoodii ay intaas ay kusoo halgamayeen waxaa jira maamul sameynta Banaadirland oo gudoomiye uu ka yahay Dr. Hussein shirar badan lagu qabtay Yurub marka maamul sameynta Banaadirland ama gobolka Banaadir horta waa maamul soo socday ilaa xilliga madaxweyne Xasan Sheekh ilaa hadda socda ugaaskana waa taageereynaa ra'yigiisa wanaagsan fikirkiisa wanaagsan uu yiri 7 xubnood oo korna looga keenay yeelmeen haddaan nahay gobolka Banaadir ugaaska waa ku taageersanahay ugaaska Mudlood waxa kale oo loo baahan yahay caasimaddu waa intay dawladdu fadhiso gobolka Banaadir 15 degmo haddaan dhano oo inta kale aan dawladdu u goyno gobolada Soomaaliya gobolka Banaadir ayaa ka tira badan marka xaqiiqada laga hadlaa gobolka Banaadir wuxuu noqon karaa dawlad goboleed gooni u taagan saas ay tahay anagu waxaan rabnaa gobolka Banaadir inuu noqdo sida Washington
وإن دولتنا إيميل فرصة أصلاً وحقيس وقارك ويشو قبل كبنادر وإن لك لقاضو دولتنا أيضا فرصة معمول قبلاتك أيو أصلاً قونو تاغناكرا سوء هلو إن وحيس وقارك ما دام قبل كبنادر أو النقضي قبل ضيعن أو وحبل لو قبل مركروت لقاد لا وحلو قبل تملهن marka waxaan leenahay shacabka gobolka banaadir istaaga maamul goboleedkaas waa in sida ugu dhaqsaha badan in banaanka loo soo dhigo waan ognahay shirar badan oo Yurub ka dhacay ilaa Mareykan ka dhacay hadda maadaama uu jiro cudurkan jini ilaahay ha naga qabtee oo micnihii aan la soo imaan karin haddana ha lagu dadaalo maamulkii sidii loo sameyn lahaa maamulka markii la sameeyo waxaa loo jeedaa wax muuqdo oo leedahay laakiin haddaad wixii aad leedahay aad ka jiifato yaa ما نقبته أنت تضوح بنات ليرهبه ضدك يا الله قيبنا مرك ضدك الله قيبه أنا كان من الله قيبنا قبل ذلك كله وامية مرك هاللقو تشتا ما من قبلات كي بنادر لهم إنسوا قد أخصاب بدن ميز كل صار تضبط عشان وحي يلينه يوحنا غادا كرنا ماهن ينلقو عيبوبين وما تصامي نواف سلامي الأستاذ أحمد هودة علي هودة نواف سلامي سيدا قروحنا بدن أو برنامج أدنو عشنتي وأنكم هاسنتي وما تصامي نواف سلامي aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin waxaan rabaa walaalahana daawanaya marka koowaad inay barnaamijkan gaarsiiyaan oo ay share gareeyaan midda labaad oo aan la socodsiin rabaa waxaan ogahay aan hore u sheegay barnaamij inaan bilownay sadexgalka iyo arrimaha guurka oo kale inaan bilownay asbuucii hore ilaa hadda waxa isdiiwaan geliyay ilaa gabdha yaryar gabdha dhexe gabdha kore 10 wiilasha sidoo kale ilaa 7 barnaamijkaas si aad ula socotaan fadlan وأنا وحيد النافسية ولا سقطان يوتيوب كانت سبسكرايب هذا قربان أنا كان أحد حكرا إني عيد ضد بانكوها يا أنكوسو بدونا وحن يقول الأيام كايا إن شاء الله هدي إلى هيدمو وحن كوسو بدونا قبلها حتى مركز ستة لانتالي أيام برنامج كذا وحيرين دونا أنا ونويرشة مركز ماتش كانت فيها سيان ماركس سلوا ده إيه دونا هدي إلى هيدمو هبين كسب دقة يعني إذا دافن عدة دانو كايسو haddii ilaahay idmo midda kale si aad noola socotaan barnaamijka mar walba live ma ahid youtube-ka nagala soco wixii ku dhaafay si aad u ogaatid interest markaa wax danaynayso meesha markaad ka aragtid markaa waa nala soo xiriiri kartaa waana aan kugu xiraynaa haddii ilaahay idmo barnaamijkaani waa barnaamij aan rabno inuu noqdo barnaamij dhaxalgala ummaddana wuxuu soo kordhiya runtiina already waxaa bilowday mataqaanaa ma doonayna annagu waxyaaba bilaa macniya si dhaba ayaan doonaynaa inaan mataqaanaa barnaamijka uga qabana haddii ilaahay idmo ilaa haddana waxaa ka soo baxay risaaltii habeenkii koowaad oo la qabtay ilaa hadda ilaa 2 qoys ayaan ku dhownahay inaan dhisno oo aan dadkii ay soo dalbadeen aan isu helnay oo aan hadda rabnaa inaan wada xiriirsiino haddii ilaahay idmo ciddii markaad doonaysa in arrintaas laga caawiyo waxaad nagala soo xiriiri kartaan Gurgata TV habeenka sabdiga 8 habeennimo haddii ilaahay idmo halkan haddii kala soco YouTube-ka akhbaaraadkaagana noo soo gudbi haddii ilaahay idmo barnaamijkii maanta daawadayaal wuxuu noogu egyahay intaas barnaamijka waxaa igala qayb galay xaliimo diriye abwaan cumar taalo nadiifo qaran barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed cali hudaya intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum assalaam وعليكم